haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku daran yahay fadlan ha fiirsan. sheekadan waxay ku dhacday wiil magaciisa la yiraahdo Cabdiqani. hooyadiis iyo aabihiis ayaa iskhilaafeen kadibna way kala tageen. dhowr isbuuc kadib Cabdiqani aabihiis wuxuu soo guursaday naag kale. Cabdiqani naagtaas uu aabihiis soo guursaday aad ayay u qurux badneed, markastana Cabdiqani way ka taxadiri jirtay. Cabdiqani eedadiis wuxuu u haystay inay tahay qof aad iyo aad u jecel, markastana ka taxadirayso. muddo kadib Cabdiqani jiradiis aad iyo aad ayay weynaatay, aadna way u darnay. Cabdiqani jiradiis waxay gaartay heer xataa uu sariirta ka soo kici waayo, sariir kicitaankana ay ku adkaato. kadib asigoo qolkiisa ku jira ayaa waxa uu imaaday eedadiis, waxaana u keentay kaniinigii markuu cabeynay cabaar ayay u sheekeynaysay. kadib eedadiis boorsadeeda ayay wax ka raadinaysay, waxayna kasoo bixisay boorsadeeda cirbad. Cabdiqani wuu la yaabanaa sababta ay cirbadan usoo bixisay, sababtoo ah ditoorka Cabdiqani cirbad muusan usoo qorin. kadib wuxuu ku dhahay eedo maxaa waay cirbadan aa soo bixisay? waxay ku dhahday iidane cirbadan haddii aan ku duro hore ayaa ka caafimaadaysaa, ditoorka ayaan iisoo qoray. laakiin Cabdiqani ditoorka wax kastoo soo qoray wuu ogaay, wuxuuna ku dhahayay ma raba eediga dhaaf. laakiin eedadiis way xanaaqday, gacanta ayayna ka qabatay, waxaana dhahday qasab ayay kugu tahay in ditoorka wuxuu kuu soo qora lagu siiyo. Cabdiqani wuxuu la yaabay eedadiis hal mar sida ee dabeecaddeeda isku beddeshay, isla markii ay sariirta ayuuna ka booday uuna kasoo orday. eedadiisna way kasoo daba orday, inkastoo jirnaa Cabdiqani uu aadna u ordi karin, wuu qayliyey si aysan eedadiis u qaban. Cabdiqani markuu qayliyey waxaa soo baxay aabihiis, qayladii ayuuna maqlay. kadib wuxuu dhahay maxaa ka rabtaa wiilka? Cabdiqani eedadiis waxay kusoo orday isla markii Cabdiqani aabihiis, waxaana dhahday waa in adiga lagu diraa si aad u caafimaado. laakiin Cabdiqani aabihiis gacmaha ayuu ka qabtay, kadibna dhulka ayuu dhigay, gacmaha ayuuna ka xiray, waxaana u wacay booliiska. Cabdiqani eedadiisna sidaas ayaa lagu xiray. kadib baaritaan dheer markii lagu sameeyey waxaa la ogaaday cirbadaas inay ahayd cirbad sun. dhakhaatiirtii waxay Cabdiqani u sheegeen haddii cirbadaas la duri lahaa inuu Cabdiqani si degdeg ah ku dhiman lahaa. kadib Cabdiqani eedadiis ayaa interview laga qaaday, waxaana la ogaaday cunto kasta oo ay Cabdiqani u keenayso in ay sun ugu soo dari jirtay. laakiin nasiib wanaag markasta uu ka badbaadi jiray, inkastoo suntu iska cunay. Cabdiqani wuxuu tagay isbitaal si uu caafimaadkiisa usoo jeekareeyo. kadib isbitaalkii ayaa lagu daaweeyey, sidaas ayuuna ku fiicnaaday Cabdiqani. laakiin Cabdiqani arrinka uu markasta la yaabanaa uu ka fikiri jiray ayaa waxay tahay sababta ay eedadiis u diri rabtay iyo waxa ay nafsadiisa la damacsaneed. Cabdiqani ilaa hadda wuxuu xasuustaa markii eedadiisa xabsiga loo sii waday, waxay dhehaysay waad dhimanaysaa, mar dhowna waan kuu soo laabanayaa. fadlan ha hilmaamin inaad like saarto fiidiyoga, haddii aad nagu cusub tahayna channelka subscribe saar.